الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودياشي إذا قدرنتي قيمها مدن وهالكاد نقد داونسان وتلفزيونك عالمي سومالي سات وانفليو إن الدنيا دعالة ده هذه ترى عليه أتكداوتان مالك استوصبتي أنا واحد داوتان برنامج كني عنكها إلا مقعب حي سان كاقونتا وأنا تعلها إن أنا هذه ترى على ذي كانوا ضد أتكفى إذا سكرتان ويا رجل ذا أقونتا أوليين حتى رد بنعكس سايتايبه waxaa maanta sharaf ah inuu nala fadhiyo mid ka mid ah aqoonyahanka Soomaalida kuwooda ugu caansan Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo ah macallin wax ka dhiga jaamacadda University of Minnesota ama jaamacadda Minnesota ahna nin ay dadka Soomaalidu intooda badan yaqaanaan asal ahaan Cabdi Ismaaciil Samatar wuxuu ka soo jeedaa dalka Soomaaliya laakiin waa Soomaali American haddana waa Soomaali sida doontaba adigu u qaado maanta wax sharaf ah Cabdi Samatar ku soo dhaw studio Soomaaliya walaal waad ma salaamta Cabdi Professor Cabdi Samatar waxa uu ka mid yahay aqoonyahanka Soomaaliyeed ee tirada yar leh intii dalka Soomaaliya u baabaasanaa sanad walba dib ugu laabanayay isaga oo sida aanu taariikhda ku hayno intii ay Etoobiyaanku joogeen Soomaaliya ayaanu sanadka tagin baan filaya Professor Cabdi Samatar waxaad ka warantaa hadda waxaad ka soo laabatay Muqdisho dhawaan adoo muddo dhow ka sokeeyay xaaladda guud ee Muqdisho bal nooga waran marka hore sawir naga sii walaal horta dadka ku dhageysanaya way salaamayeen adiguna waad ku mahadsantahay inaad maanta igu soo martigelisay barnaamijkan magaalada Muqdisho waxa weeyaan magaalo taariikh dheer leh waaye Soomaaliyana ku qiimo weyn ku leh waaye magaalada marka dhex martid lugna waan ku maray gaarina waan ku maray waxaad arkaysaa boqolkiiba 80 ilaa 90 hantid Soomaaliyeed inay dhulka taalo oo la burburiyay wixii warlords ka soo baxay ka soo haray waxa cagta marisay Etoobiyaankii wixii kuwa ka soo haray shabaab iyo amisom ayaa cagta mariyay marka waa magaaladii oo dhulka taala magaalada dhulka taala waxa dhex yaala dad Soomaaliyeed oo diiday inay isdiibaan oo ay ogolaadaan in laga adkaaday marka himiladooda niyadooda dareenkooga ayaa wax weyn waxna abuuri kara haday ummadi niyadeedu jirtana lama jabin karo lamana baabin karo marka waad ku diirsanaysaa marka magaalada tagay ee lugta ku maray xamar weyn aan ku maray jaziiraan tagay liida ayaan tagay halkii baarlamaanka horaan lagu marnay meeshii maxay baa mushtarkay loo oran jiray maxay suuqi weynaa ee bakaaraha ayaan lagu marnay dhulka fara badan xaafadahana gawaari baan ku marnay marka waxaad arkaysaa dad doonaya inay wadankooda dib u dhistaan laakiin sela dadkii horgeli lahaa ee u bildaamin lahaa waxaynu u baahanahay iyo sidaynu u baahanahay inaynu isku maamulno oo wadanka u dhisno walaal aad baad maasantay Professor Cabdi Ismaaciil Samatar haddii aanu soo noqono dhinaca waxbarashada waxaad muddooyinka u dambeeyay ama 20 sano ee ay dawladdii dhexe ee Soomaaliya ay baabaasanaydba waxaad sanad walba tagisay xamar waxaadna gaar xoog saartaa dhinaca waxbarashada waa maxay sababta waxa weeye walaal hadii mesela taariikhda adduunka aad eegtid mesela Europe oo kale markii dagaalkii labaad Jarmalka iyo Faransiiska iyo Ingiriiska particularly Jarmalka iyo Japan dhulka ayaa la dhigay xoolahoogii waa la burburiyay ya laakiin dadka ayaa noolaa haday markaa dadku wax ku bartaan adduunyada waa la dhisi karaa haduuna dadku noolayna boqol adduunyo oo haysatay hadii maanta khayraad fara badan wadanka laga helo waa la inaga qaadan doonaa qaarna imikadaas la qaadanaya mesela hadan ku tilmaamo inay aqoon la'aantu halkayna dhigtay 20 sanadood ugu dambeeyay xoolaha laga xaday Soomaaliya ee badda ku jira ee kalluunka waxa xisaabtooda lagu qadarayaa ugu yaraan inay 9 bilyan oo dollar tahay oo baa ma bilyan ha 9 bilyan hadii Soomaali loo soo celin lahaa ama loo deyn lahaa iyada oo qura ayaa wadankooda dhisi lahayd marka wax way aqoon la'aantu halkayna dhigtay taas weeye marka waxyaabahan ugu jecelahay aroor kasta inaan arko markan magaalada tago iyo gobolada kalaba waxa weeyaan 6 iyo barka ilaa 7 ayaa magaaladii toosaysa qofkii salaad tukaday mooyaane 7 iyo barka waxa soo baxay caruurtii gaar ahaan magaalada Muqdisho oo labis xidhan labiskii lagu yaqaanay ardayda markad bidhaantooda ama bildaantooda aragtid waxaad ogtahay inay Soomaali nooshahay intay kuwaas jiraan marka in aqoonta xoog la saaro waxa weeyaan xataa hadaan batrool la helin hadaan diamond la helin hadaan wax kale la helin caruurta hadaynu wax barno iyaka ayaa abuuraya wax diamond ka u leed mesela waxaad ka soo qaadaysaa wadanka Switzerland iyo wadanka Japan midkoodna khayraad dabiici ma laha
dadkoogii bay wax bareen maantana adduunyada waa dadka ugu wax soo saar ugu badan marka waxa weeyaan intaynu wax kale raadin lahayn caruurteena haddaynu wax barno iyaka ayaa dheef iyo nasashaba inoo keeni doona walaal professor weli waxbarashadaynu ku dhex jirnaa maadaama tahay macallin aqoon-yahan dadka Soomaalida aad u yaqaanaan ma jiraan aqoon-yahan kale oo sidaadoo kale ama professors kale oo qurbaha ku nool oo iyaguna yimaada sidaadoo kale waqti badan ku lumiya inay ardaydu wax baraan ama ay wacyi geliyaan والله horta ma xisaabiyo yaa tagay yaan tagin cabdo ma idhaaho walaal laakiin se waan arkay mesela nin Yusuf la dhaho Ahmed Nuur oo jooga Ohio uu tagaa nin Mahadala la dhaho oo Louisiana jooga uu tagaa Ahmed Samatar uu tagaa waxa kaloo taga dad nin Nasir la dhaho London jooga uu tagaa macallimiin caynkaasi way tagaan laakiin se maan weydin nasiib darrada inagu dhacday wax weyn annakii baan xataa professorada aan xiriir lahayn oo haddaan oran lahayn waar 3 bilood 5 6 intaynu isku raacno meesha iskuulka caynkaas aan tagno ama jaamacadda caynkaas aan tagno intaa guuga ee jaamacadu xidhan yihiin halka casharaan ka soo bixino macallimiintana casharaha la siiyo ardaydana casharaha la siiyo waxa ummadda isku keeni lahayd marka gooni baa loo socdaa nasiib darro laakiin se waxa weeye way tagaan waxna way ka qabtaan walaal waxbarashada halkaas aad jecel bal inaan ku yiri joojino dhinaca siyaasadda inuu gelinaa professor maadaama shaqada professor taariikhda juqraafiga labadaba aad ugu xilleeraatay muddo badan waxa jiray wax loogu yeero dawladihii kumeel gaarka oo muddo socday ka waran hadda dawladdan talada gacanta ku haysa bisha August ay u hadhay maamulkeeda inay wax ka bedelayeen dawladihii ka horreeyay sidee kuula muuqata adiga safarkii ka horreeyay October markan tagay magaalada Muqdisho ayaa markan soo noqonayay awal saani baad uga soo duuli jirtay xamar ilaa Nairobi iminka se waxa la soo fariisanaya wajeer baa la fadhiistaa wajeer baa lagu baaraya oo laga passportkii lagaaga shaabadanaya la iska ka eegaya wadan kale oo Afrika ku yaalo wajeer soo maraya ma jiro Nairobi saani waxayna haysta waaye hadday markaa dawlad Soomaaliyeed oo iyadu isku kalsoon oo dadkeegana kasbatay haday jirto wajeer laynama dhigeen kow talabaad waxa weeye nin markaa la socday diyaaradda ayaa ay gartay markaas uu war cabdi haddaad magaalada timid maxaad noogu sheeg weyday markaasaan ku yidhi anu macallin baan aho ardaydu baa iog baan ku yidhi siyaasiyiinta iyo ma dhex galo markaa waxaan ku yidhi haye bal adaa meesha jooga noo waran war waxba ma jiraan buu yidhi hadda waa isagoo ku dhex jira dawladdii waxba ma jiraan buu yidhi markaa waxaan ku yidhi allo wax jira noo keen wallahi naxkal allo wax jira noo keen marka waxa weeye fursadda maanta timiday 3 sanadood ee ugu dambeeyay timiday banaanka lagaga kacay waxa weeye mid hayna taariikhdu iloobi karin waxa weeye haddii dadka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo baarlamaanku hay shakhsiyadooda meesha iska dhigi lahaayeen oo oran lahaayeen aabaheen gublan dadkeenii baa goblamay oo dibadda yaal cawradooda dibadda taala wax kale haddaynaan samayn cawraddaa waa inaan asturnaa ya hadday sidaa yeeli lahaayeen maanta meel gooniya oo ku meel gaariya kamaynaan hadashay iyagoo markaasi wax kale aan samayn ayaa dadku odhan lahaayeen noo sii jooga dictatorsku ama qolooyinka dadka la wataa waxayna fahmin waxa weeyaan haddaad dadkaaga kalsooni ku leedahay iyakaa wax kaa dhigi kara haddaanad kalsooni ku lahaynse cid kaloo wax kaa dhigi karta ilaahay ka sokow ma jirto marka intay ku tartamayeen anaa jagada sii joogi doono qaar waxaa la yidhi waxaan doonaya madaxweynaha inaan sii nohayo mid baa koran ra'iisul baarlamaanka inaan sii ahaado ra'iisul wasaaraha inaan sii ahaado waxaasaa lagu tartamayaa baylahda Soomaaliyeed wadankiyo daadsan dadkiyo macaluuli dishayna lama danaynayo walaal markaa nasiib darrada inagu dhacday 3 sanadood oo soo dhaafay waa taasay ka mid tahay dhawaan waxa idaacadaha caalamka iyo adbaad markaad ka ahayd waxa lagu shiray London shir la yiri Soomaalidii baa la isugu keenaya waxa isugu yimid goobta Soomaali kala wada jeedaa oo qoloba ay dana gaar wadatay haddaynu soo qaadano maamulka Puntland baa meesha marayay Somaliland oo iyadu tiri dalkaba waan ka go'ayo anigu waxaan dawlad gaar oo ictiraaf leh federaalkii baa marayay shirkaas dadka la soo keenay sidee buu kula muuqdaa professor inuu rajo leeyahay rajo la'aan waxa weeye xamar baan tagay 2001 January labadeedii markaa meel jaamacad ardaydan la hadlayay markaas su'aal ay weydiiyo leeyahay cabdo maxay kula tahay waxaan ku yiri waxaan ogahay Allah ha u naxariistay abwaankii timcada yiri baan ku yiri hareeraha rag ay naga xigaa hela libtoodii markaa waxaan ku yiri Soomaaliye haddaan tashan weyn waa la inoo talinayaa markaa reer Muqdisho waxa tiin xundurtii wadanka haddaad ogolaan weydaan inaynu inakoo walaala talis samaysano
waa la iman doonaa ilaahay wax khayr laha ka dhigo laakiinse ma arkayaan wax khayr loo soo socdo ma arkayo marka waxay ku tusaysaa waxa weeyaan inaan weli laga waanto waad sii saadaalisay in ilaahay baa wax saadaaliyay waxaan ku yidhi anu waxaan ka baqanayaa waxa socda mad kala aragtid waxa imanaya waad arki kartaa waxa la yidhi qof weyn haduuna garan waxa jooga waxa soo socda ma garto marka waxa weeye haddii aad cawra leedahay cawradaada diinta islaamka waxay koranaysaa waa inaad dambistaa ood mara saartaa cawradii waxa weeyaan cawradeennii baa London taallay markaasaa la leeyahay annagu Soomaali baanu nahay lamana arkayo ficilkooga iyo kala qaybsanaantooda halka ay ku joogaan in cawradii oo la sii warayo inay tahay ma arkayaan marka waxa weeye dad ku danaysanaya ama gobol gaara ama kursi gaara ama kharash gaar oo helaan oo ku noqon waayay waxba farsamadoodii gaarka ahayd iyo maskaxdoodii iyo xoogoogii ku dhididi kari waayay ayaa doonaya inay tuugo wax ku noqdaan marka waxay ahayd ingiriiskuna inuu cawradeena asturay hayd Soomaaliduna intayna meesha iman inay gartaan bay ahayd oo tiraahdaa war bal inaku kolkaynu meeshana joognahay isjiijiidanne markaynu meeshan tagno line haynu wada galno wax qurahan ku wada hadalno mid walba wuxuu haystaa ka kale walaalkiiya hadduu ka warramo oo xumeeyo inuu isagu wax ku cumanayo marka haddaan ku tilmaamo waxa jiri jiray waagii dagaalkii Jarmalka ee labaad ayaa nin wadaada oo Kaatooliga loo yimid markaasaa Jarmalkii baa qaadaya kii madaxiisa bidaarta lahaa buu qaaday maalintii hore dilay kii gaabnaa buu dilay kii indhaha madoobaa buu dilay kii timaha caddaa buu dilay markaa ninkii wadaadka wuxuu yidhi aniga maxaa iga galay anu mana tima madoobi mana gaabni mana sina mayhiye markii dadkii la mariyey maalintii dambe isagaa loo yimiday markaasaa la yidhi adaa lagu qaadaya maanta hareeruhu eego ii soo gurmadaa buu yidhi cid u gurmanaysaa ma jirto marka waxayna dadkan madaxda sheeganaya gobolada iyo federaalkii waxayna garan in maalinba la haldhabaysanayo Soomaali isaguna uu ismoodayo inuu ka qure dhabarka loo tumay inuu wax ku noqonayo laakiinse maalinta isagana loo yimaado wehelkii joogi maayata ha ogaadaan professor waxa jirta taariikhda sida aynu ku ognay ama Soomaaliyaba xilligii isticmaalkii ama gumaysigii cadda dalka xukumayay wuxuu kala ahaa laba gobol oo koonfurta Soomaaliya iyo waqooyiga Soomaaliya haddana waxa la yidhi labadii qoladan waqooyiga ama Somaliland waxay yiraahdeen anagu dawlad gaar ah nahay ingiriiskuna wuxuu kula taliyay in labada dawladood ay labada maamul isu tagaan oo heshiiyaan sidee kula muuqata adiga ma isu iman karaan ma wada hadli karaan hadday soo wada hadli karaan maxaa ka soo bixi karaan waxaan xasuusanahay walaal Cabdo markii Etoobiyaanku xamar hay galeen bishii December 2006 ayaa qolooyin reer Hargeysa oo igu kacsanaan jiray ayaa telefoon ii soo diray waa dadkan baayac mushtarka markaas waa aroor hore ahayd iyo kana galab bay u tahay xageennana aroorba hebel weyn war maxaynu soo kadeeday maanta baan ku idhi markaas ay dhaan kud ka guuro qanjo u guur baa yimiday maxaa dhacay war annakuna ma hadli karno Muqdishona waa la qabsaday bay yidhaahdeen annakuna ma hadli karno Muqdishona waa la qabsaday soomaad garan marka waxa weeye qofka saylac jooga islaanta boorama joogta tagabilay joogta Hargeysa joogta berbera burca joogta Kismaayo joogta dantoodu waa isku mid diintoodu waa isku mid afkoodu waa isku mid marka waxa weeyaan qolooyin siyaasiyiin oo iyo ku jagooyinkii ku heshiin waayay ayaa qoorta waxaan inoo wada sudhaya caruurta galbeedka joogta waxay rabaan iskuulo iyo markay iskuulada ka soo baxaan inay shaqo helaan kuwa Kismaayo joogaana caynka kuwa bari joogaana caynka kuwa baydhabo joogana waa caynkaasi waaye marka haddii laga fikirayo oo aakhirada laga baqanayo ilaahay laga baqanayo waxay ku tusaysaa markaa dadka walaalaha in la isku soo jiido la isku tolo oo la isku xidho dambi dawladdiisii aad barre way gasho Hargeysa iyo Burco inay baabiisay waa markhaati madoonta waaye inay bari horteed baabiisana waa markhaati madoonta waaye kuwii ka dambeeyana inay baydhabo iyo buurxa kaba baabiyeen waa markhaati madoonta waaye marka dadkeenni kolba mid baa la haldhabaysanaya la dilaya sida qurax ee lagu walaaltoobi karaa waxa weeyaan iyadoo danta caadiga dad qofka caadiga laga shaqeeyo taasina lama kala goyn karo marka haddii hay ingiriisku of all countries haddii ingiriisku markaa yidhaaheen hala wada hadlo oy walaalahay reer Hargeysa taa maqlayaan waxba kama qabo in la wada hadlo waxaase lagu wada hadlaya maaha laba dawladood maaha waxa weeyaan dantii Soomaaliyeed maxay tahay waana noqota dadka reer Hargeysa siday shaqo u helaan siday uga soo kabtaan dhaawacii gaadhay dadka Muqdisho Etoobiyaankii dilay
dadka reer baydhabo abaarihii dilay iyo etoobiyaankii dilay sidee inakoo walaalaa looga soo kaban karaa caruurta baydhabo joogta iyo kuwa kismaayo jooga iyo kuwa hargeysa jooga sidee bay walaalo haddana dib ugu noqon karaan ilaan waa walaalo islaam iyo soomaalinimo hayse haddii taa la wado warkaasi waa warsamo wanaagsan waxay barnaamijyo xisbiga iyagu wadan waxay ka mid tahayba sidii dadka la iskugu soo dhaweyn lahaa walaal professor weli inagu taa ku dhex jirna waxaa jira iyadoo markii horeba dalku ahaaba soomaaliya ay mid u ahayd xilligii isticmaar kadib dagaaladu inta dhaceen oo dalku kala baabay waqooyi iyo koonfur kala noqdaan Somaliland iyo Soomaaliya iyo Puntland hadda waxaa jira maamulo cusub oo iyaguna meeshii yimid sida dooxada Shabeelle oo beledweynaha Awdal State oo iyaguna hadda maamulaya Juba State Khaatumo iyaduna tii hadda ugu dambeysay oo waliba Khaatumo iyo Awdal baa ka tirsan dhinaca Ingiriiska kuma jiray sidee kula muuqata arrimahaas waxa weeye ka guuro qanjo u guur bal hadda imika waxay sii marayaan dhowr iyo 30 bay sii marayaan madaxweyne iyo gobol bal inta adu mushaharasi hadda wuxuu wadanku haystay caanaleyda iyo timirleyda iyo arijirta iyo beeraleyda laga gurayay ayaa halkan loo fadhiisanaya si ay ugu gorgortamaan oo hadhow wax ugu noqdaan shakhsiyan ma si ummad wax ugu noqoto ayaa halkan loo fadhiisanaya marka waxa weeyaan waa labadii horaanu khaati ka joognay wacdala waaba koronkoradan dambe waaye Soomaad garan marka waxa weeye Soomaaliya waxa weeye haddii aad doonaysaan in caruurtiinu adduunyada la tartanto haddii doonaysaan in lagu qiimeeyo maaha shakhsiyan lagu qiimeyn karo maayo qoomiyad ahaan in lagu qiimeeyo koronkorada ka soo baxaysa dhulka dhowr iyo 30 madaxweyne sii maraysa meel hay inoo wadaan ma jiraan mid walba shilan inta loo tuuro ayaa la oranaya waxaan samee adiga annaka ku wadana ummadina meesha ku baabaasaa islaamnimadana taasi cadow bay u tahay soomaalinimadana cadow bay u tahay labadaas rukunna waa labadan ka duuli karano marka hadii qofkii soomaalinimo islaamnimo ka soo horjeeda ee oranaya horta anigu waa inaan wax noqdo intayna ummadu wax noqon waxaas ay horboodaya la iska qabto professor Samater waxaan soo laabanayaa su'aalihii u dambeeyay iyadoo waqtigan aan ku xisaabtamayno xisbiga la yiraahdo hiil qaran waa xisbi hadda aad moodo in xisbiyadan hadda la magacaabay xisbiga ugu awoodda badan leh ama ugu dadka badan leh sida inta badan aan maqaalada iyo qoraalada wax laga qoro aan ku akhrino xisbigan aad ka mid baata sida aan kulli anigu ama waa khaldan kara asaasayaashii gundhigii xisbiga hiil qaran baad ka mid tahay xisbiga ujeedooyinkiisa oo kooban bal wax yar horta xisbiga waxa weeyaan xisbi Soomaaliyeed oo himiladiisa iyo mabdaiisa ugu weyn u yahay inaan Soomaali laga shaqaysan ee in loo shaqeeyo dadka marka qof doonaya inuu isagu wax noqdo ma soo gali kara xisbiga qof doonay ninba maalin isoo wacay markaas waxaan doonaynaa inaan wada hadalno xisbi kalan ka socdaa markaasaan ku yiri bal ii sheeg xisbigiinu wuxuu yahay wax ma qorteen ma wali maxnaan qorin maxaa doonaysaa markaas yiri anigu waxaan leeyahay rajo inaan wax noqdo annakuna waxaanu nahaybaan inuu wadanku wax noqdo ayaa ka horeysa inaanu annaku wax noqono taas weeyaan horta mabdaiisa ugu weyn laba arkaanoodna laba rukunna wuu ka duulaa islaamnimo iyo soomaalinimo oo aan la kala saarayna isku dhafan waxa weeyaan markaasi xisbigu uu kala qaybsan yahay xisaabta lagu sheegayaa ama qof baa wata ama reer baa wata oo ninkan baan soo horjooga annaka waxa weeye lama soo saarin cidii ku soo bixi lahayd aniguna liiska kuma jiro waxaan ku sheegay maanta laakiinse waxaan ku jiraa sidii loo soo saari lahaa liis ummadda u qalma oo la tartama marka waxa weeyaan dadka xisbiga maamulka haya oo anigu waxaan u hay xogayaha guud kama qayb gali karaan wasiir iyo waxaas ma noqon karaan waxay ilaalinayaan sharciga xisbiga inay kuwa xisbigu soo saaray inay ku shaqaynayaan iyo in kale iyaka ayaana soo saari doona dadka xisbigu u soo bandhigayo marka waxa weeyaan xisbi hay ka go'an tahay inuu shisheeyo waxba ka qaadan inuu ummadana u shaqeeyo islaamnimo iyo soomaalinimona qotadeeda la dheereeyo walaal professor hadii dadkan aad magacawday aad tiri mas'uuliyiinta xisbiga hadda gacanta ku haysaa isma soo sharaxi karaan haddii qolada hadda aad shaqada u dhiibteen idin soo sharaxaan idinku diyaar ma tihiin marka inaad xilka qabataan sharciga xisbiga waxa weeye in dadka maamulka xisbiga hayaa inayna laba aflayn oo marna xaggan hayna u boodin marna xaggan u boodin Soomaaliya ma taqaan xisbi kale oo maanta la sheegi karo oo caynkaasina ma jiro walaa kuwa ka jira waqooyi walaa kuwa koonfur ka jira marka waxa weeye Soomaali maaha afar qof oo qura ee maamulka xisbiga haya dad fara badan oo dumar iyo rag baa
oo farsamooyinkeegu heer sare ah ayaanu soo bandhigi doonaa oonu rajaynayno inay ummadda deeqi karaan walaal. maxaad ula baxdeen hiil qaran adoo soo koobaya waay professor aad ula baxdeen magaca hiil qaran? waxa weeyaan qaran waa wadanninimadii soomaalinimadii waaye. waxa weeyaan cid u hiilinaysa qarankeenni iyo soomaalinimadeenni iyo islaamnimadeenni waa la waayey 20-30 sannadood oo dhow dhow. marka waxaan ugu harqabsanaa waxa weeyaan waxaanu u hiilinaynaa qofka caadiga ah ee Soomaaliga ah dantiisa iyo danteeda. marka qaranka ayaa loo hiilinaya weeyaan ee qabiilo looma hiilinayo, qolana looma hiilinayo, shakhsina looma hiilinayo. professor su'aasha ugu dambaysan ku weydiinaya allah u naxariistee waxaa maanta geeriyooday saaka markay subaxii inoo ahayd inaga waxaa geeriyooday madaxweynihii hore dowladda federaalka cabdillaahi yuusuf axmed. ka waran intii uu maamulka hayay isbedelkiisii maxaad kusoo koobi kartaa adoo taariikhdiisa ama horta midda ugu horeysa waxa weeyaan qof islaam sheeganaya oo dhintay waxa weeyaan inna ilaahi wa inna ilaahi raajicuun in la dhaho ilaahow naxariiso. taariikhda wixii adduunyada uu kaga tagayna meeshay taallaa. aakhirana ilaahow waa qof muslim sheeganaya u naxariiso inaynu dhahno in u ducayno ayaa inala waajiba waayaan. haddii taa haynu dhaafno markaasi waxa weeye cabdillaahi nin ciidanka Soomaalida soo galay buu ahaa, nin Ethiopia Soomaali u horseeday buu ahaa, nin ciidan Ethiopianas Muqdisho keenay buu ahaa. waxaasoo dhan taariikhda u gelaysa. marka maanta lama joogo markii aynu ka hadli lahayn dhibka uu keenay cabdillaahi waxa weeyaan qof geeriyooday, qoys Soomaaliyeed ka geeriyooday. marka qoyskiina samariya iibaan baan ku leenahay. ummadda Soomaaliyeedna waxaan leenahay u duceeyay inuu Ilaahay naxariistii janno ka waraabiyo. waa hagaag daawadayaal waxaad nagala socotaan waa telefishinka caalamiga ee Soomaalisaad waana barnaamijkani la magac baxay sahanka aqoonta qaybta koowaad ee barnaamijkan aanu ku wareysanaynay professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo dhawaan ka soo laabtay magaalada Muqdisho. waxaan jecelahay qaybaha dambe haddii eebaha awoodi leh ogolaado isaga iyo aqoonyahanka kula Soomaaliya inaan dib idinku soo gudbino. waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo professor Cabdi Samatar. Abdi walaal waad mahadsantahay. Assalaamu calaykum. aad mahadsantahay.